shirkadda dhulmaal iyo adeegyada casriga haddii aysan dhinaceeda dhulmaal maanta ku iman oo dhagaxa aysan ku qorin bulukeeti lala dhacay oo dhismaha ku habeeyana aadan dheega kala gelin waxa aad dhisaysaa dhulka kuma nagaado waa dhoobo iyo ciid ee dhismahaagu weliga dhalanteed yuusan kaa noqone dhulmaal dhinaca kala soco oo ku nagow dhulmaal shaygeeda lala dhacay dhagaxeeda qoran oo dhab ahaanna loo helay bulukeeti dhilan oo aan dhaqaaqin oon jabin dhulmaal baad ka helaysaa dhulmaal waa shirkad soo saarta agabka dhismaha aadna ka helaysid dhagax qoran oo loogu talagalay dhismaha guriga kaas oo looga maarmayo ama looga kaaftoomayo kharashkii badnaa ee qofka iyo gurigaba dhibayay shirkadda dhagaxa dhulmaal waa shirkaddii ugu horreysay ee u qaabaysa nooceeda oo kale Soomaaliya oo dhan dhagaxeeda waxaa lagu raacay tayada quruxda kharash yaraanta dhaqsashada guriga xisaab hufnaanta isbayska dhulka dhulmaal waxay kaloo ku haysaa bulukeeti ka casrisan noocyadii hore tayo sare iyo qiimo jabanna lagu raacay shayga dhismaha guriga kan wadooyinka shayga shubka shayga interloga iyo dhammaan noocyada kala duwan ee interloga waxaad kaloo ka helaysaa naqshadaynta guryaha naqshadaynta dhulalka qiimeynta naqshadaynta guriga dayactirka guryaha dhisida dalabaadka guryaha iibinta guryaha dhisan wixii intaas dheer fadlan kala xiriir xafiiska dhulmaal oo ku yaala ex xira daraawiish ama dhabarka dambe ee Amal Bank ama kala xiriir telefoon nambarada kala ah 7 eber 8 eber 613 ama 7 8 ama 7 8 59 ama 85 30 ama 7 79 24 ama 776 WhatsApp number 776 ama email dulmaalstone@gmail.com horay u gaar shirkadda dhulmaal بسم الله الرحمن الرحيم أنا معي واحد تحليل داير آذن waxaan ka tirsanahay shirkadda dhagaxa dhulmaal oo saldhigyada gaalkacyo si guudna waxaan u sabalay garaynaa macaamiisha dhagaxa u baahan oo dhismaha u rabta oo kala joogta meelo kala duwan oo kamid ah Puntland sida Garowe gaalkacyo iyo xataa Boosaaso way tagaa hadda waxay ku laabto dhagaxan hadda dhagaxa aragteen oo qoran oo aad loo istandardiyay aad loo habeeyay cabirkiisa iyo fiisa fawaa'ida uu leeyahay waxa kamid ah oo dhagaxan oo soo kordhiyay dadka wax dhisanaya u faa'iideynaya dhinaca tayada iyo quruxda iyo qiimaha guriga ku cahayo spaceka dhulka kharash yaraanta xisaab hufnaanta inta uu faa'iidooyin badan u leeyahay waxaan hadda ku soo kordhinay oo kamid ah mashruuca la socota qayb cusub oo inaanu waxa weeye bulukeeti ku darno ee jirta waxa kaloo meesha iyo taxsiid ku arkaysaa yaala baalka loo yaqaan interlock oo looga maarmayo mutulaalkii yaala waxa kaloo yaala arkaysaa shayga baa soo hadda socdo oo hadda bishan dhaqan gali doona waxaan kaloo sameeynaa inaanu dadka ka caawino dhismaha guryaha sida qofka hadduu guri qandaraas ah waxay raactaa la dhiso oo maada dhagax farsamadiisa iyo garanaysa iyo qaabkiisa iyo quruxdiisa iyo nidaamkiisa garanaysa qofka hadduu dhul banaan baa haystaa in shaqadeeya qofka hadduu qiimeeya iyo wixii la mid ah marka faa'iido badan buu leeyahay taas waxay abuurtay in laga raysto wixii aan san jirnay oo runtii foolxumada iyo qaab darrada iyo qiimaha iyo kharashka iyo tayxumada inta isku jiray marka waxaan leenahay runtii bulshada waddanka ku soo kordhiyay wax aad iyo aad weyn oo dhan kasta oo laga eegaba wax la taaban karaa marka intaas ayaan ilahaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.